guryihi mu'minaadka ayuu alla tilmaamayaa haweenkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hore waa ka loo yiri waman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa an-nabi لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتربية إلهية وقريهن إن لقى أركا لدون أيوه إذا قضب كان الله بعد محوية هي السعادة مركا ربنه قريهن إن أكو حصل له قريهن إن أكو دقنه وإن قريهن صلاة الليل لقيته كذا قريهن وإن قرآن كان لقى أقرياه قريهن وإن لقى فوقيه وحيابها آلاتك حنحو وإن لقى فوقيه سادرادت الإيمان روح الحياة روح السعادة قاعدة أن الصدحات أقري ونكسنور لسكرته وفهم الحقوق والواجبات حقوق ذا واجبات كلا اسكولية هي أو سيدة هي لو فهمه أيا اللي هذا هل سؤال هذا أنو اسويدين أو كليئة حق أدو الله ذا هي إيه حق أدو اللي قولي هي كودي حق بدل حق أدو الله ذا هي إيه حق اللي قولي هي كي حق بدل مر والبوحة حق بدل حق أدو اللي قولي سبب كايدين شيء يا هرنا وانو شيء لأن حق أدو الله ذا هي صدح مدوي قضبك إلى قبطة وقضب هيما حق أدو الله ذا هي صدح مدوي إن لغو سيا ومعقول وكو إن لغو عفيانة ومعقول إن لغو سيا ومعقول بروتشي ذا إن أدو عفيانة ومعقول حق عضاله حق عضاله صدح مدوي إن لغو سيا ومعقول قف كذا حق كله إنه يكون عفيانة ومعقول لبدا هداد الدنيا كويدو أيضا آخرك كاغه الرئيس oo ilaahay aad hortiisa aad ku doodi baad u tagi khasaare miyad qabtaa khasaare ma qabtid saddexda mid weey imma in lagu siiyo imma inaad adigu cafido imma inaad aakhara ugu tagto laakiin xaqa adin lagu leeyahay waa xaqa marna aan laga cafin karin oo khatarsan weey waxaan leenahay marka qaacida qabsa addi ma alayki وأدي ما عليك وحال لقول ياهي أذو جذو وحال الربائنا يمرك عملي أن كدقنا محاضرة ذينا بل عملي هذا أن كدقنا تصالة أن كبحنه سأن عملي هانو فهمنا ننكا قبل وحكون بسطي حقوق ذالب كسي وياي محاد سمين يسامرك ما وحدكم مشغول تصالة أهان وحيga maxaa la ii siin waayay maya adigu wuxuu ku leeyahay samee adigu wuxuu ku leeyahay samee markuu arko ninku asagoo sameynaya waxaad ku lahayd xaqiiqa insaanku waa cajiib وحشونيا إنسان كحشود بكو أبورا وقاعد وركا نكا جو كو عرضو عريسان توساكا كعريسي أياد بحضي أيوب بحي عفن أصغو كو عريسان أو أدغو وكا عريسي أيوب بحي محا سميني كورنا هدو كو سون نغضو أدغو قروح بدن أدغو عرف بدن أدغو عنتم عن أدياريي أدغو نول عدينيو قسلية ومحادعي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آيات أساكو هجيسة ويوحان القرية إيمان بالله ربا إيمانك كو هجية قرآنك كو هجية سنة النبي كو هجيسة صلى الله عليه وسلم مركزها وحاتري ما أنت آيات أساكو نغميا ادفع بالتي هي أحسن مايا وناقا راعيا سيدو أولها حاسكي أو عريسان باد أتجي أياد الباب كفرتي مي
albaabka intuusan soo gaarin guriga albaabka kore laga soo galo inaan gabadha gaariyada ah hal bay kaga duwan tahay gabadha aan gaariyada ahayn gabadha gaariyada ah gurigeeda waxay ku shiday waxa laga carfiyaa albaabka kore laga soo carfiyaa hada waa albaabka kore ayaa laga soo carfiyaa markuu albaabka kore soo galayo ayuuba marka horeba su'aal isweydiin waniyo maxaa jira gabadhii ayadoo cadhaysan baad ka tagtay talo maanta maxay samaysay gurigani maanta oma eka guri laga cadhaysan yahay asagu isa soo qanciyey ayaad albaabka ka furi adigoo noocee ah adigoo u eg habeenkii lagu aqalgeynayay adigoo u eg ninkii waa yaabaya cadhadii uu kaa cadhaysiiyana wuu ogaa habbaa siisay waa soo dhowaysay oo dhabannadaad ka dhunkatay waad qaaday gurigii baad geysay shukumaan baad musqusha u geysay kabihii uu musqusha ku geli lahaa ayaad xagga u jeedisay wuu sii gashaday ninka noocaas ah waa dhaqangelin baa la dhahaa su'aal baan marka hore inaan weydiiye yaa diyaar u ah waa tuma gabadha cadhadaas intay xagga dhigto sida aan sheegnay ayada oo ka duulaysa qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaam iyo walaa tansawu lfadla baynakum iyo wanaag la isla soo maray iyo inay noloshu sii socoto iyo inay nafteeda ka adkaato oy nafteeda xakamayso waxaan rabaa gabadha inay gacanta taagta ayada bas aan rabaa maya kulligiin maaha gabadha arrintaas samaynaysa waa gabadhee waa kulligiin diyaa tamaam bal aan aragna marka arrintaas horta waa fariinta koobaad oon rabaa inuu dhaqanka sidaa noogu dhaqan galo waxbaan maqallay ma soconayso laakiin camal baan rabnaa inaan camal samaynaan rabnaa ninkii yaana ka tegin saaxiibkayba hadda ag fadhiya nimanka asagaa madax ka ah haddii xaaskaagii oo kaa cadhaysiisay oo cunaha aad ku kala go'an tahay oo aad leedahay tan yaa istaaggaba ku cuna ya haddaad albaabka ka baxdo oo adigoo naqsan hayo oo cadhaysan oo afka abuurka kicinayo xididadu ku kacayno awdajeenku dhagax weyn lagu fadhiisiyey oo haddaad iridda ka baxdo kadibna ayadaa kaa cadhaysiisay ogow hadda ayadaa kaa cadhaysiisay kadibna ay isleedahay talow odagaagii sidee buu maanta yahay kadibna aad dhahdo war ma gabadhii wallaca soo martay war ma gabadhii xaamilada soo martay war ma gabadhii umushay ee umasheeda aan dul taagnaa war ma gabadhii intaa gogosha kuu qurxinaysay weligaa islaantaada haddaad u gogosho sariirta horta dhabar xanuun badan bay leedahay idinka rag haddaad tihiin waxaad u malaynaysaan gogol iska goglan baa iskaga seexataan wallaahi haddaad ogaan lahaydeen gabdhaha markay sariirta goglayaan dhabar xanuunka ay kala kulmaan caqligaada maaha aniga hal maalin baa waxaan damcay xaaskaa waxay aaday Dubay carruurtii waxaan ku yidhi waryaada hooyo markay soo dhaweynayso oon anu maqnahay guriga waxaan u imaadaa haddee nidaam ah oo cajaa'iba iyo sariir cajiiba iyo dholka wixii la kala bedelay iyo ubixi ma taqarta gabadh baa ubaxay soo siisay gabadh yar baa soo siisay markaan meesha aan marayay qoladii saa ahay waxaan idhi waryaada ciyaalka waxaan ku yidhi intii la joogtay waxaan rabaa hooyo siday samayn jirtay si ka fiican inaan guriga u samayno walaada waanu samaynay islaama deriska ah yidhi sheekhow annagaa imaanayno guriga samaynayno xaaraan bay ka tahan ku idhi guriga annagaa samaynayno laakiin weligay ma iloobin guriga shaqada gashay musqushi dhaq muraayadaha tirtir daahi bedel soomaali garan daahi bedel sariirtii gogol ee ubax soo dhig armaajadii meeshay taallay gedi meel kale ka soo jeedi war ileen shaqadu waa shaqo adag may sariirta baana bedelin ha sariirtii bedeloo sidaa hadday haysaa u jeedi markaad bannaanka u baxday gabadhii oo islamaanta odaygii waad ka cadhaysiisay war arbuuba dalqad soo tuura ka warran haddii aad u timaaddo
adigoo ubax u wada iyo adigoo intaad warqad jeeg u wada jeeg bad u wada jeeg lacag maaha mar alla markii aad u timid ayaad iyadoo le odayga waa carisan yahay ayaad albaabkana kaa furtaa soo dhawaysay kadib aad jeega u dhiibtay jeega maxaa ku jira maranaysaa jeegu wuxuu yahay habeen iyo maalin hotel 5 star inay seexanayso خلاص waa dhamaatay intaas weeye horta nolosha la idiin sheegaya waa intaa raggana kama qariyo anigu waan u sheegaa haddana bambaasaan ka imadoo waan u soo sheegay waxaan idhi reerka wanaagsani qodob baan kaga hadli doonaa ayaana ka dibdhicino tajadudul xayaa nolosha in la cusboonaysiiyo ayaa la yidhaahdaa xuquuqda marka waa qodobkeenna saddexaad maxaanu nidhi qaacidadan qaadanay waa maxay xoog waxba ha saarin anigu maxaan leeyahay waxaad xoogga saartaa maxaa laygu leeyahay gabadhii waxay bixisay wixii lagu lahaa ninkiina wuxuu bixiyey wixii lagu lahaa meeshiiba inta la rabay ee sharciga looga dan lahaa intaasoo ahayd qodobkeenna afraad waa qodob aad u culus aad u fudud dadku ilaahay waafajiyo aad ugu fudud laakiin aad u culus lacag kuma fadhiyo sida korontada lacag lagama bixiyo ma taqaanaan kan carabka alkalimatu tayiba reeraheenu maanta waxay u baahayeen waa intaa ninkaaga ma dhihi kari laday xabiibi ma dhihi kari ninku xaaskiisa ma dhihi leeyahay xabiibati ma dhihi leeyahay ma dhihi laday ninkaaga kelimad midda ugu macaan kelimadda qalbigiisa markaad ku dhahdo qalbigiisu isbedelayo in badanna waanba sheegayoo waxaan nidhi gabdho badan baan u muxaadaranay hadda ka hor waxaan ku idhi adeer aduu magacaa cawrala aduu magacaa faadumo yaa kuu bixiyey aabbahay iyo hooyaday soo maa maxaa ninkaagu muxuu kugu yeedhaa faadumo ninkaaga magacii xuseen yaa u bixiyey hooyadii iyo aabbihii oo adigu ninkaaga magaceed oo la baxday ninkaaga waa inaad magac oo la baxdaa soo saas maaha magac uu jecel yahay ninkaaga u samee oo isla taqaanaan idinka labadiinna isla taqaanaan ninkuna waa inuu magac nabigeennu wuxuu dhihi jiray hooyada yaa caa'ish xataa tasghiiru caaisha si uu qalbigeeda u farax geliyo waxaan u malaynayaa markaannu guryaha ku noqonno intaad sii socoto intaa inaad ka fikiri doonto talo odaygaaga magacee ku habboon yaa ma caddow baad dhihi kartaa ma macaanow baad dhihi doontaa ma rakar gabdhaha waa artay 5 karoon bay la baxaan marka ninkaaga 10 karoon u bixi marka 10 karoon miyaad u bixin doontaa waa inaad magac u bixisa ninkaaga qodobkaasi waa miftaax alkalimatu tayiba kelimada wanaagsan afxumada guryaha laga ilaaliyo guryaheenna afxumada aan ka ilaalinno kelimada tayibka ah raggana waa sidoo kale tabcan